Maria Abshir oo ku magac dheer boqorada istaalka ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Hargeysa ee Somaliland, halkaasi oo uu ku nool yahay saygeeda cusub Haykal Maxamed Muuse. Labadaba dhowaan meherkoodu waxauu ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Boqorada istaalka oo aad loo sugayay safarkeeda ay ku tageysay magaalada Hargeysa, ugu dambeyn waxa ay ka degtay magaalada Hargeysa, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada qaar ka mid a kuwooda isticmaala baraha bulshada. Maria Abshir iyo sidoo kale Haykal Maxamed waa laba dhalinyaro oo barta TikTok caan ka ah, waxaana arooskooda uu soo jiitay indhaha qaar ka mid a dadka bulshada caanka ka ah iyo qeybaha kala gedsan ee bulshada, iyadoo hambalyo iyo tahaniyad hawada loo marinayay si weyn loogu bogaadiyey tallaabada farxadda leh ee iyagu ay ku go-aansadeen in ay markaasi ku midoobaan nolosha. Boqorada istaalka iyo sidoo kale Haykal Maxamed ayaa dadku waxay sheegayaan badankood in arooskooda si aada loogu qabanqaabinayo magaaladaasi Hargeysa ee Somaliland, halka dadka qaar ay sheegayaan in munaasabada weyn ee 26 bisha Juun la filayo kadib in arooskooda halkaasi uu ka dhaco, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maalinta ciidda kadib arooskooda la qorsheynayo in si weyn loogu wado in halkaasi uu ka qabsoomo. Si kastaba ahaatee, Maria Abshir ayaa ugu dambeyn waxay la midowday saygeeda cusub Haykal Maxamed. Labaduba waxa ay ahaayeen dad si aada baraha bulshada dadku ay kala socdeen muuqaalada ay ku baahinayeen iyo muxibada ay isku muujinayeen. Hase yeeshee haddana arrintan ayaa waxa ay dadku ku tilmaameen mid cajiib ah islamarkaana ku dawaasho mudan, maadaama shacabweynaha ku kala nool inta badan magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale Hargeysa ay ahaayeen dad aanu sidaas oo kale isugu soo dhowaan jirin amaba isku soo socdaali jirin, balse tani waxa ay wadada u fureysaa dhalinyaro badan oo qorsheynaya in ay arrimo guur iyo xiriirba ay ka sameeyaan una tallaabaan qeybo ka mid ah Somaliland iyo gobolada kala gedsan ee Soomaalida. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu kasoo jeeda magaalada Muqdisho ayaa kusii qulqulayay magaalada Hargeysa, halkaasi oo ay isugu tegayeen iyadoo la filayo in aroos weyn uu ka dhaco halkaasi kadib xafladii nikaaxa ee dhowaan loo qabtay boqorada istaalka iyo sidoo kale saygeeda cusub Haykal Maxamed. Waxaa ka mid ah dadka magaalada Hargeysa ku sugan Shushu Cabdalla, Cali Kay iyo qaar kale oo badan, kuwaasi oo kasoo socdaalay magaalada Muqdisho, halkaasina kula soo biirtay boqorada istaalka, islamarkaana la filayo in ay si weyn u boqoraan xafladda arooskooda weyn ee la filayo in uu gilgilo magaalada Hargeysa ee Somaliland. Si kastaba ahaatee, dadka caalamka ku kala sugan ama kuwa baraha bulshada si aada isha ugu hayay ayaa arrintan aad u bogaadiyey isla markaana soo dhoweeyey. Welina waxaa is soo taraya hambalyada iyo fariinta kalgacalka iyo wanaagga ay ku dheehan tahay ee loo diraya lamaanahan cusub ee nolosha ku midoobay, isla markaana lagu bogaadinayo in ay ka shaqeeyaan muxibada iyo isjacaylka, isla markaana ay kor u qaadaan wanaagga dhexdooda yaallo. Haddaba iyadoo oo siyaasadda ka dhexayso dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Somaliland ay marayso meel xasaasi ah, ayaa haddana dadka qaar ee afkaaraha kala gedsan aaminsan waxa ay iyagu rumaysan yihiin in bulshada Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogtay in ay yihiin dad walaalo ah, isla mar ahaantaana xiriirkooda uu noqon karo mid taabagal ah oo dhaqangal ah, oo isla markaana horumar iyo wanaag fara badan laga dheehan karo. Boqorada istaalka iyo sidoo kale Haykal Maxamed ayaa labaduba dadku waxa ay ahaayeen kuwo isha ku hayay siiba muuqaaladii ay kasoo muuqanayeen. Xilliyo waxaa jirtay labaduba safaro kala gedsan ay ku kala bixiyeen Hargeysa iyo sidoo kale Muqdisho iyo Hargeysa, waxaana dadku intooda badan ay u muujinayeen farxadda iyo wanaagga, iyadoo ay jireen baaq loo dirayay Maria islamarkaana ku aadaneed in xiriirkaasi uu noqdo mid kusoo biirshubto guur, isla mar ahaantaana uusan noqon mid markaasi maal abaal ah ama ku salaysan arrimo kale. Hase yeeshee, ugu dambeyn waxaa imika la shaaciyey xafladda guurkooda oo la filayo inuu ka dhaco dhowaan magaalada Hargeysa, qabanqaabaduna imika ay ka socoto qeybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee Soomaaliya.